maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn, meel guuldarradu aanay boos ku lahayn, boos uga bannaanayn guuldarro. waxaan go'aansannay inaan u guntanno dagaalka dalka looga sifaynayo khawaarijta. waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna, islaamnimadeenna iyo qarannimadeenna. dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee Soomaalida maanta ay leedahay. waa inaan isku garab siino shacab iyo dawladba sidii aan dalka oo dhan uga xoreyn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay. iyaga oo garawsaday khawaarijta al-shabaab iyo daacish in ay yihiin khawaarij in ay yihiin ka been sheegaya diinteenna suuban, kuna dhiiraday in ay iska dulqaadaan dulliga iyo heeryada khawaarijta ku soo gabatay diinteenna. abwaan Soomaali ayaa horay u yiri nin dayoobay soo noqoy markuu waagu daalacay, dadweynihii la lumiyaana mar unbay dowga helayaan. dadkeennu maanta ayay dowga heleen. sugidda amniga iyo ciribtirka khawaarijta ka sokow, shacabka Soomaaliyeed waxa uu u baahan yahay Soomaaliya sharcigu sarreeyo, taas oo inaga rabta meelmarinta shuruuc la jaan qaadi kara xilliga aan ku jirno iyo duruufaha inoo gaarka ah maanta Soomaaliya. iyada oo taas laga duulayo, waxaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu aan faray in ay ka howlgalaan soo gudbinta dhammaan shuruucda dalku u baahan yahay oo qayb ka mid ah oo muhiim ah ay soo gudbiyeen durbadiiba. xildhibaanada Soomaaliyeed oo walaalayaal, anigoo maanka ku haya in la helo jawi siyaasadeed oo xasiloon, kaasi oo saamaxaya in si wada jir ah looga shaqeeyo xal u helidda arrimaha masiiriga ah ee u baahan heshiis siyaasadeed, deganaanshiyo, iska warqab, isku kalsoonaan ayaan u baahannahay. sidaas daraaddeed waxaan booqasho ku tegay inta badan dowlad goboleedyada dalka. waxaan sidoo kale yeelannay 3 kulan golaha wadatashiga qaran oo aan ku lafa gurnay xoojinta hannaanka wada shaqaynta heerarka kala duwan ee dowladda iyo isla meel dhigidda qodobada waaweyn ee ay tahay in xalkooda si mid ah looga wada shaqeeyo, sida dhammaystirka dastuurka dalka oo waqti badan qabiirtirku soo jiitamay, dhammaystirka hannaanka amniga qaranka si loo helo hannaan loogu midaysan yahay oo qayb mug leh ka qaadan kara xoreynta iyo la dirirka khawaarijta, helidda nidaam doorasho oo heshiis lagu wada yahay oo loo sii dhoweeyey shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay degan yihiin, mudnaan siinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka, arrinta xal u helidda Somaliland iyada oo loo maraayo wada hadal, isu tanasul iyo isqancin, xoojinta iyo dhammaystirka nidaamka federaalka ah, dhammaystirka iyo taabagelinta hannaan garsoor oo madax bannaan oo isla markaana hufan, maadaama ay waajib tahay in dowladnimadeennu ay ka turjunto baahida shacabka loo adeegayo. waxa aan sidoo kale shirar kala duwan oo wada tashi ah la yeeshay qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaaliyeed oo aan ka dhageystay talooyin wax ku ool ah oo ku aadan arrimaha ay u arkaan in ay mudnaanta la siiyo inta aan ku guda jirno muddo xileedkeenna. waxa aan markii aan xafiiska imiday safarro dalka dibaddiisa ah ugu ambabaxay dalal kala duwan. ujeeddada safarradaasi iyo booqashooyinkaasi waxa ay salka ku hayeen qorshaheennii ku aadanaa inaan helno siyaasad arrimo dibadeed oo ka duulaysa Soomaaliya, diriskeeda
iyo dunida heshiis la ah waxaan safaradaas aasaas u ahaa inaan madaxda dalalka aan ka wada hadalno danaha aan wadaagno iyo qaabka ugu habboon ee ay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska iyo dib u soo yeelashada iyo soo kabashada qaranka Soomaaliyeed iyo kaalinta ay ka geysanayaan dagaalka aan kula jirno khawaarijta manaxanka ah ee caqabada ku ah dawladnimada iyo nolosha dadka Soomaaliyeed kuwaasi oo banaystay daadinta dhiigooda boobka hantidooda ku xadgudubka sharaftooda dhammaan safaradaas waxaan kala soo laabanay guulo annaga oo madaxda dalalkaas isku raacnay inay door mug leh ka geystaan arrimaha hortibinta u leh dawladdeena iyo dadaalada aan ku baadi goobayno dib u dhiska dalka iyo xoojinta dawladnimada curdanka ah ee maanta aan haysano haddaba aniga oo gudanaya waajibkayga dastuuriga ah sida ku cad qodobka 9aad xarafkiisa ga ee dastuurkeena waxaan ku soo gabagabeynayaa hadal jeedintayda kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa noo furaya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaas waa si kooban waqtigu maadaama iska xadidan yahay waqti dambana yahay laakiin walaalaha sharafta leh ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan mar walba ku adkeynayaa oo ku celcelinayaa wada jirkiina iyo u heelanaanta hawshu inay socoto isqabqabsiga iska hor imaadka hadallada kala socdo dhan dib un bay noo sii dhigayaan waxaan bogaadinayaa runtii labada gole wada shaqaynta iyo quruxda bilowga ah ee ka muuqata waxaan rajaynaynaa in ay sidaas kalfadhigan iyo kalfadhiyada ka dambeeyaba ay sidaas ay ahaan doonto aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin guul iyo waxaan idin rajaynayaa gobonimo assalaamu calaykum waraxmatullaahi